واكو سلامي dagaal xoogan waxa uu dhex maray burcadbadeed Soomaali iyo waliba sidoo kale markab dagaal oo dawladda Hindiya ay leedahay ciidamadii Hindiya oo xooga badnaa waxay u babacdhigi waayeen dhalinyaro burcadbadeed ah oo haystay markab ganacsi oo ay qafaasheen dabayaqada sanadkii tagay sida ay wax u dhaceen laba kamid ah shaqaalaha markabka oo kooxdu ay toogatay warbixintan ayaanu ku eegaynaa soo dhawaada muuqaalka shargaray aragtida qaybta hoose commentiga noogu ramahsanid xeebaha Soomaaliya waxa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeya burcadbadeed Soomaali ah oo gacanta ku haysay markab lagu magacaabo MV Ruin kaas oo ay qafaasheen bishii December sanadkii tagay ee 2023 markabkan maalmahan dambe waxa socday wada xaajood u dhaxeeyay ganacsatada markabka lahayd iyo waliba sidoo kale kooxda burcadbadeed oo hore u dalbatay in la siiyo lacag dhan 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah hase ahaatee wada xaajoodkii oo la soo gabagabeeyay maanta isla markaana la sugayay kala wareejinta lacagta ayaa si lama filaan ah weerar aan indho lahayn waxa u soo qaaday ciidamada badda ee Hindiya iyaga oo soo weeraray markabkii ay la socdeen burcadbadeeda Soomaalida ama u qafaalnaa halkaas waxa ka dhacay dagaal culus waxaana lagu soo waramayaa in burcadbadeedii ay iska caabiyeen oo ay iska celiyeen ciidamadii badda Hindiya ee hubka culus watay waxaana jira dhaawacyo soo gaaray qaar kamid ah raggii burcadbadeeda ahaa ee la dagaalamay ciidamada Hindiya waxaana taasi ay keentay in burcadu ay carooto isla mar ahaantaana ay bilaabaan inay joogtaan shaqaalihii markabka saarnaa si xabadda looga joojiyo waxa la xaqiijiyay in laba kamid ah shaqaalihii markabka ay dileen taasoo keentay in ciidanka Hindiya ay dib u gurasho sameeyaan yacni dagaalkii xooga badnaa ama weerarkii ay soo qaadeen ay xoogaha dib u dhigaan inkastoo la leeyahay ciidamada Hindiya wali waxay doonayaan in guud ahaan markabka gacanta ay ku dhigaan iyo waliba ragga saaran ee burcadbadeedda ee markii hore soo qafaashay mawjado xoogan ayaa ka kacay oo burcadbadeednimo ah waxaana la leeyahay markan burcadbadeedii Soomaalida ayaa dib u soo laba kaclaysay isla markaana waxaa jiray maraakiib kale oo u qafaalan kooxaha burcadbadeedda waxaana tani ay ka dambeysay markii badda cas qalqal uu ku yimid oo kooxda Xuutiyiintu iyaguba ay bilaabeen inay qafaashaan maraakiibta u socda dhanka Israa'iil inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin in hawshan burcadbadeedda mashruuc kale oo Soomaaliya qiraadkeeda lagu beegsan doono in uu yahay ayaa haddana dawladda Hindiya waxay ka mid tahay dawladaha sida weyn ee weerarada uga fuliya xeebaha Soomaaliya isla markaana sheega in ay la dagaalamayaan burcadbadeedda Soomaalida iyadoo la ogyahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood xitaa ilaa hadda aan wax dambi ah lagu helin in xabsiyadoodu ay ku dhibaataysan yihiin oo aan la soo daynin sidoo kale wararku waxa ay intaasi ku darayaan in markabkan hadda la isku dayayo in loo weeciyo dhanka xeebaha degmada Eyl sabab la xiriira in ragga saaran ay doonayaan saaxiibadooda dhaawaca ah inay dejiyaan oo la soo daweeyo sidoo kalena iyaguna ay helaan xoog cusub hase ahaatee Hindiya ayaa doonaysa inay arrintan ka hortagto ilaa hadda dawladda Soomaaliya wax wararka ma aanay soo saarin arrintan dhacday sidoo kalena ma jiro faahfaahin kale oo intan ka badan oo weerarkan ka soo baxay wixii ku soo kordha halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa aragtida qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalka share garay si dad badan u gaar mahadsanid